عبد الله حسن حسين كان من ضد كنافذة ماشي اسمه تيمي أهنا مارتي بدون كلين كمعت كنافذة IDP Institute Education for Disabled People وحكوا سننا لما جديدها ولا لهنا إن وعويان وعلى اللي في إكران وحنا ضد اليمين ولا أو قبلنا فكر الدول دوليال اليمين ونقول كذا هو قاريال هو جرجورنا عرور الدواوين وعيل أنا كنا المجال مقدسو وحال كير إلهي أوجهي وحسنينا إن الكساعدو لأن كان بشا برشادة ومرنتا برسمادة شقادة قعنتا وحان كلوال كان عبشا وجيديننا هيادها جرجارك كنا كهول قال مجال مقدسو انتو دبدن وأن وحبا dadka naafada u qaban kuwaas oo maartay adeegyadooda ka dhigo kuwa maartay exclusive u qaas dad qaas oo maartay aan dadka naafada access u lahayn dhowr jeer ayaan organization ahaan iyo bulsho ahaan iyo shakhsi ahaan u la xiriirnay waxayna noogu jawaabeen inaysan arrimaha naafada wax ka qaban marka waxaan u direynaa ayagana cabasho in ay bal ka fiirsadaan siyaabaha ay u dhaqmayaan ama jawaabaha ay bixinayaan anaga waxaan dad naafa umad ayaan ka tirsanaa ilaa ugu dhibaatada badan oo ehelka u amaanta in la caawiyo ayaan nahay u sheegaynaa madaxdooda iyo shaqaaladooda iyo wakiiladooda magaalada Muqdisho jooga in ay il gaar ah u yeeshaan uryaamiintan ku nool magaalada Muqdisho gobolka Banaadir degmooyinkiisa kala duwan macadka naafada wuxuu aad iyo aad u danaynayaa in uu ka helo wada shaqeyn dhammaan hay'adaha ay qusayso arrimaha humanitarianka oo barashada Abdullahi waan fahanay baaqaaga hay'adahan iyagu ka shaqeeya arrimaha humanitarianka hadii ahaan lahaayeen kuwa localka iyo kuwa internationalka ee qaramada midoobay hoostaga ma la hadasheen ma u tagteen oo ma la xiriirteen hadii aad la xiriirteenna ayay ahaayeen kuwa dalabkiina diiday wallahi xafiiska main headquarter-kooda ugu weyn ee Muqdisho UNDP-da ay halkan ku nool yihiin halkaas oo ay degan yihiin afar hay'adood oo UN-ka hoostagta ayaan tagnay kuwaas oo runtii codsigeena qaabili jiray hatta waxaan loo diiday in iridkan la furo maartay gudaha aan u galno macnaha waraysigeena la codsigeena la dhageysto aan ka dhigaa dad naafa oo aan waxba qabsan karin ama qof maartay soo tagay inuu iridka macnaha toogsi ama maartay shaxaad oo kale ayaan nolol dhaqmo qayb bulshada kamid ah xaqna u leh waxyaabaha xafiiska uu qabanayo iyo waxyaabaha ay shaqahan ay qabtaan iyo waxyaabaha ummadda ay qabanayaan mid xaq u leh aan nolol dhaqmo marka arintaas waxa waaye arin ka jirto intooda badan hay'adaha ka howlgala magaalada Muqdisho waana arin cadeynteeda aan muujin karno aan hay karno arrimaha waxbarashada hadii aan la mashaariicda horumarinta hadii aan la mashaariicda maarta quudinta hadii aan la intaas dadka naafada laga ma qayb geliyo waa barnaamijyo exclusive ah dad qaas ah oo aysan dadka naafada access u lahayn hadda halkan waxa fadhiya dad badan oo isugu jira caruur dad da' haween iyo dad dhaxaada oo dhalinyaro ah sida adigoo kale marka caruurta iyo dadka da'da yar duqooda waa iska halkoode ma helaan waxbarasho ma helaan shaqo goobaha waxbarashada iyo kuwa shaqooyinka sidee lidin kala dhaqmaa arrimahaas bal noo sharax sida aan hore kugu sheegay dadka naafada access uma aha arrimaha ka faa'iideysiga public service-ka sida waxbarashada caafimaadka shaqooyinka access uma leeyahay waana arintaasna waxa keenay mid ka timid dadka service-yadaas bixiyo oo aan noo diiday in aan kala qayb qaadan kana faa'iideysan hadii ay ahaan la iskoolaadka hadii ay ahaan la goobaha laga shaqeeyo hadii ay ahaan la goobaha maartay xirfadaha gacanta laga barto hadii ay ahaan la goobaha maartay ganacsiyada waxaas oo dhan ma wax anaga hadana naafada access aan u leenahay oo wax aan banaanka ka taaganahay indhahana aan ka fiirsanayno anagoo xaq u leenahay naloo diiday dadka ku midaysan macadka naafada ee aad adiga gudoomiye ku xigeenka ka tahay tiradooda misay gaarayaan wallahi macadka waa organization dad gooniya oo u tiro kooban ma jirto laakiin wuxuu wax u qabtaa mar walba intii uu awoodo ama dhaqaalihii la helo ama mashruuci la helo in alaal intii ka faa'iideysan karta uu qabto
ما أها معدك معناه organization dadkii oo dhan matala balse waa organization mar walba intii wax loo qaban karo inuu adeego